waxaan mar dhow akhriyay Rich Dad Poor Dad. waxaa qoray Robert Kiyosaki. Cabdiyaar wuxuu lahaa labo aabbo. mid waa aabihiisa faqiirka ah Jaamac, midka kalena waa saaxiibkiisa aabihiisa taajirka ah Yuusuf. Jaamac jaamacadda ayuu dhameeyay, PhD ayuu haystaa, laakiin Yuusuf iskoolka 8 ayuu kaga baxay. Jaamac wuxuu dhahaa, wiilkaygiiow iskoolka ku dadaal si aad hadhow shaqo fiican u hesho. laakiin kan kale wuxuu dhahaa, iskoolka ku dadaal si aad hadhow shaqo u abuurto oo bulshada u anfacdo. mid wuxuu dhahaa, wiilkaygiiow aniga ma awoodo waxaa rabtid inaan ku siiyo. laakiin kan kale wuxuu dhahaa, sideen ku awoodi karaa inaan ku siiyo waxaad rabto. mid wuxuu dhahaa, halista iska ilaali oo weligaa ha u dhowaan. laakiin kan kale wuxuu dhahaa, baro sida loo xalliyo halista. mid wuxuu dhahaa, ani lacag ma xiiseeyo, lacag kuma baahni. laakiin kan kale wuxuu dhahaa, lacagtu waa awoodda. mid noloshiisa oo dhan faqiir ayuu ahaa, shiid ayaa dilay. laakiin kan kale wuxuu noqday ninka ugu taajirsan magaalada Hawaii. labada waalidba waxbarashada aad ayay u qiimeyn jireen. waxay dhahayeen bulsho walba waxay u baahan tahay sida dhakhtarka, injineerka ama tumaalaha iyo waxyaalo la mid ah. laakiin Yuusuf wuxuu dhahay, waxbarashadu waa muhiim, laakiin iskoolka dhibaatadiisa waxay tahay dadka keliya wuxuu baraa xirfad, oo dadka markay xirfad bartaan kadibna shaqo ayay raadsadaan. markay shaqo raadsadaan wixii intaas ka dambeeya lacag ayay adoon u noqdaan oo shaqadaas ayay weligood ka shaqaynayaan. haddii aad rabto inaad taajirto waa inaad barataa micnaha u dhexeeya asset iyo liability. way fududahay. asset jeebkaaga ayuu lacag kusoo shubayaa oo taajir ayuu kaa dhigayaa. laakiin liability jeebkaaga ayuu lacagta kala sii baxayaa oo faqiir ayuu kaa dhigayaa. si aad u fahanto, kan kow waa incomekaaga, waa lacagta kusoo gasha dakhligaaga. kan kalena waa expenseskaaga, qarashka kaa baxa. kan kalena waa assetskaaga, raasimaalkaaga. kan kalena waa liabilitygaaga, waa waxyaalaha aad u malayso in uu raasimaal yahay laakiin aan raasimaal ahayn. sida gaari haddii aad soo iibsato hadda oo 100 kusoo iibsato, isla marka haddii aad sii iibinaysid kuma helaysid 100 aad kusoo iibsatay, waa ina qiimaha aad jabisaa. guriga sidoo kale, ama dalxiis haddii aad aadaysid waa liability. ama telefoonka yar ee quruxda badan iPhone-ka waa liability, sababtoo bil walba jeebkaaga ayuu lacag ka bixinayaa. wax walba oo jeebkaaga lacag ka bixinayana waa liabilities, sababtoo kharash ayuu leeyahay. laakiin haddii aad guri leedahay ama gaari ama wax walba oo jeebkaaga oo lacag soo gelinayaan mar walba ama bil walba, markaasna wuxuu noqdaa assets, sababtoo jeebkaaga ayuu income soo gelinaya. assets waxaa ka mid ah sida guryaha haddii aad iibsato oo aad sii ijaarto, ama bakhaar haddii aad sii ijaarto, ama stocks haddii aad leedahay, ama intellectual property sida online business, ama business caadi haddii aad leedahay oo laakiin qof kale kuu shaqaynaya oo adiga kuu baahneen, kaas waa asset. mid ogaa, taajiriintu waxay iibsadaan keliya assets, raasimaal. faqiiriintuna mar walba waxay ka fikiraan oo keliya wax calooshooda gala iyo waxay gishtaan oo keliya. bes intaas ma dhaafaan. waxaa soo hare kuwa dhexdhexaadka ah oo wax bartay oo lacag fiican soo gasha bil walba. kuwaas waxay mar walba iibsadaan sida gaariga, guryaha iyo waxyaalo la mid ah quruxda badan oo weligood booskooda ay taagnaadaan kama tagaan. Cabdiyaar wuxuu dhahay, laakiin dadka intooda badan maxay faqiir u yihiin? Yuusuf ayaa wuxuu ugu jawaabay, sababtoo ah 99% dadka koogii hore waxay iibsadaan liabilities oo waxay u maleeyaan inay iibsadeen assets. Yuusuf ayaa wuxuu dhahay, mid ogaaw, bini'aadanku mar walba wuxuu la dagaalaa laba dareemo. mid waa dareenka cabsida ah oo wuxuu ka cabsanayaa in uu ijaarka guriga iska bixin waayo, markaas ayuu shaqo raadsanayaa si ay lacag u soo gasho oo iskaga bixiyo ijaarka. markii lacagta soo gashana meesha waxaa imaanayo hami oo wuxuu haaminayaa wax walba oo lacagtiisa ku iibsan karo sida gaariga iyo waxyaalo la mid ah. kadib meeshiis kama dhaqaaqayo noloshiisa oo dhan. mid ogaaw, muhiim maahan inta lacag oo jeebkaaga soo gelayso, waxaa muhiim ah inta lacag oo jeebkaaga ku harayso. ka soo qaad, haddii aan ku siiyo 1 milyan oo dollar ama wuxuu rabo ahaado oo aan kaa qaato
999,999 waxa kaliya kuwa haray waa $1 ama 1 kun wax hore ahaado dabcan markaas taajir isku tilmaami kartid qasiyar oo ku saabsan canshuurta awalkeeda hore waxaa laga aruurin jiray kuwa taajiriinta ah waxaana loo aruurin jiray markii oo dagaal loo socdo kaliya si ay askartu u helaan hub iyo cunto maadaama oo canshuurta laga aruurin jiray kuwa taajiriinta ah taajiriintu way tashteen oo way fikireen waxay ku fikireen si ay canshuurta iskaga yareen lahaayeen meesh kuma oynin oo ma dhihin oo maxaa aniga canshuur badan lagu la qaadaa ma dhihin waxay keeneen corporation wax la dhahayo corporation waa waraqooyin sharciyeysan oo sharci ah qof walba isticmaali karo waxay qof walba u ogolaanayaan in ay canshuurta iska yareeyaan canshuur aad u yar ay bixiyaan mararka qaarkiis xataa canshuur waa laga daanayaa haddii aad taqaani sharcigaas haddii aad rabto inaad taajirto oo nolol fiican oo xornimo aad rabto inaad ku noolaato sidaan sameey haddaadan shaqo haysan shaqo raadso waa muhiim in aad income leedahay dakhli inuu kusoo galo bil walba oo bil walba markay dakhli kusoo galaana waa inaad samaysataa assets ama raasimaal waxaa samaysaa 10% oo income-kaaga ah dakhligaaga meel dhig waxaa samaysaa raasimaal ku shub oo meel ha u dhigan in hadhow aad isticmaasho laakiin meel u dhigo in aad hadhow kaga maaranto shaqada aad ka shaqayso hadda waa muhiim taas mida kale oo muhiimka ah waa iska yareey liability waa waxaan faa'iido lahayn wax haddii aad soo iibsato oo guriga aad keensato isla marka qiimihiisu jawaayo dabcan wax faa'iido leh ma lahan iska badaa aba iibsan liabilities tan kalena kibirka wax fiican maaha Yusuf wuxuu dhahay mar walba aan dareemo kibir lacag ayaan khasaaraa baro waxaadan aqoonin taas ayaa faa'iido weyn ku ah waxa kale ay iska dhaaftaa sida caajiska waa wax xun suwixi alisaydi sariirta ka kac bax shaqaad waa muhiim in ajaabkaaga wax soo galaan midda kale noloshaada hayasin haddii aad u baahan tahay in aad business bilaawdo ha dhegaysanin qofku leh waa khasaaraysaa iska dhaaf haddii aad rabto caawinaad u tag qof ku takhasusay waxaad rabto si ay jawaab fiican kuu siiyaan ayna kuu caawiso jawaabtooda mar walba dad caawinaad weydiiso ama buugaag akhriso oo ku saabsan waxaad rabto inaad hesho ama inaad samaysato iska ilaali dad aan waxba ka saynin inaad su-aal weydiiso ay jawaab khalad ku siiyaan ay ka cabsiyaan fadlan haddii aadan subscribe dhihin channelkan subscribe deh mahadsanid waa inoo mar kale